kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meelbood caalamka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena sirdoonka ee siyaasadda oo aad alaaba ka daawataan Xildoon Media. Qodobadan caawa daaha kaga rogi doonana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isku khilaafay waxa dhacaya kadib 8 February kolka ay dhamaato mandate-ka dowladda hadda jirta. eedaysanayaal lagu tuhmaya in ay ka dambeeyeen dilkii saraakiishii ka tirsanaa qaybta 12aad ee ciidanka xoogga ee deegaanka Balanballe ee gobolka Galgaduud oo gacanta lagu soo dhigay. Dowladda Suudaanna waxa ay sheegtay in ay gabi ahaanba la wareegtay dhul Itoobiya ay ka haysatay in muddo ah. Qodobada kale warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah guriga safiirka Mareykanka Israa'iil oo loo iibiyay hab qorshe siyaasadeed la yaab leh. Qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan kusoo dhawaada barnaamijka. aynu ku horeysiinay dowladda Mareykanka ayaa guriga safiirka Mareykanka ee magaalada Tel Aviv ku iibisay in ka badan 67 milyan oo dollar bishii July sida ku cad diiwaanka Israa'iil oo rasmi ah. Xogtan cusub ayaa daha ka rogtay iibinta guriga oo shaki weyn ku gadaana. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa iibka xaqiijisay bishii September, hase yeeshee waxay diiday in ay shaaca ka qaado qiimaha iyo qofka iibsaday guriga oo ku yaala xeebta Tel Aviv aaga ay degan yihiin dadka maalqabeenka ah. Wargeys ganacsi oo ka soo baxa Israa'iil ayaa qofka iibsaday guriga ku sheegay Shalon Adelson oo ah taajir Yahuudi Mareykan ah oo si weyn u taageera madaxweyne Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Wakiil u hadlay Adelson ayaana sheegay in bilyaneerkan uusan ka hadlin arrintaasi. Lacagta guriga lagu iibiyay oo gaaraysa 67 milyan oo dollar ayaa ka dhigaysa in gurigan uu yahay kii ugu qaalisanaa ee abid lagu iibiyo Israa'iil. Kaaliyaasha xubnaha Koongareeska ee Mareykanka ayaana wakaaladda wararka ee AP u xaqiijiyay in ay eegayaan haddii iibkan uu hoggaamsamay sharciga iyo in kale. iibkan ayaana xoojinaya go'aanka muranka dhaliya ee Trump oo safaaradda Mareykanka ugu soo rogay Tel Aviv kuna geeyay Jerusalem sanadkii 2018 markaasi oo uu Jerusalem u aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaana cambaariyay go'aankan Trump balse waxa uu sheegay inaanu bedeli doonin. Waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen wixii wareeg ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe bal iminkana aynu eegno xiisadda ka dhaxaysa Itoobiya iyo Suudaan. Suudaan ayaa Khamiistii la soo dhaafay sheegtay in ay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta dhammaan dhulka Suudaan ee ku yaala xadkaasi oo ay deganayeen beeraley Itoobiyaan ah kadib toddobaadyo isku dhacyo ah. Dowladda Itoobiya ayaa dhankeeda ku eedeysay dariskeeda Suudaan in ay ciidamo u soo dirtay dhulkan si ay weeraro uga fuliyaan. Xiisadda ayaana ka dartay wixii ka dambeeyay markii dagaal uu ka qarxay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, taasi oo horseeday in ka badan 50,000 oo qoys oo Tigray ah inay u cararaan wadanka Suudaan ee dariska la ah. Sabtidii Suudaan ayaa sheegtay in ay qabsatay inta badan dhulkan hase yeeshee in aysan si buuxda gacanta ugu dhigin. Si kastaba ha noqotee siyahayaha wasiirka arrimaha dibadda Suudaan Umar Gamaarudiin ayaa shir jaraa'id ku sheegay Khamiistii in ay hadda si buuxda u qabsadeen dhulka Itoobiya in muddo ah ka haysatay Suudaan. Wadahadallo u dhaxeeyay labada dal ayaana burburay toddobaadkii aynu ka soo gudubnay. Saraakiisha Suudaan ayaa sheegay in Itoobiya aysan si rasmi ah muran uga keenin dhulkan, hase yeeshee hadallada saraakiisha Addis Ababa ayaa taasi burinaya. Shir jaraa'id oo uu qabtay Talaadadii ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Diana Mufti waxa uu ku sheegay in Suudaan ay ciidamo u soo dirtay dhulka Itoobiya. Hase yeeshee waxaa taasi ku gacan sayray madaxa golaha madax bannaanida Suudaan Generaal Abdul Fattah Burhaan. Suudaan kama tallaabi doonto xuduudaha caalamiga ah kumana xadgudbin dariskeeda Itoobiya ayaa uu yiri Generaal Abdul Fattah Burhaan oo Khamiistii ka hadlay munaasabadda maalinta xorriyadda wadanka Suudaan. Suudaan iyo Itoobiya ayaa dhulbeereedka xadka ku yaala isku haystay in muddo ah waxayna Suudaan sheeganaysay in dhulkaas ay Itoobiya xoog uga haysato. Waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen wixii wareeg ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe. Wararka noo soo socda waxaa ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Mursal oo isku khilaafay waxa dhacaya kadib 8 February kolka ay dhamaato mandate-ka dowladda. balse aynu ka horeysiinay ciidamada xoogga dalka ayaa gacanta ku soo dhigay rag lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen dilkii loo geystay saraakiishii ciidanka xoogga oo ka tirsanaa qaybta 12aad. howlgal qorsheysan oo ciidamadu fuliyeen ayaana waxaa lagu soo qabtay 2 nin oo lagu eedeeyay in ay bishii December ee sanadkii dhamaaday saraakiisha ciidanka ku dileen wadada isku xiriirisa Balanballe iyo Guriceel. sidoo kale waxaa howlgalkaasi lagu soo qabqabtay dad kale oo aan weli tiradooda la shaacin.
oo sida la tuhunsan yahay gacan ku dhiiglayaasha u fududeeyey dhuumaalaysigooda tan iyo markii ay dilka fuliyeen. Howlgalkan oo ahaa mid gaadmo ah laguna baacsanayay raggii falka ka dambeeyey ayaa waxaa loo adeegsaday gawaarida noocyada shacabku adeegsadaan, borobokisyada iyo nooca loo yaqaano noohada, ayaa yiri sarkaal u hadlay warbaahinta. Waxa uu intaasi ku sii daray waxa haatan lagu raad joogaa kuwo kale oo isla goobta howlgalku ka dhacay ka baxsaday markii ay ka warheleen in howlgalku uu socdo. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaana horey u ballan qaaday in ay gacanta ku soo dhigi doonaan gacan ku dhiiglayaashii ka dambeeyay falkaasi si cadaalad loo horgeeyo. Dhanka kale, maamulka Galmudug oo u magacaabay guddi ayaan weli ka hadlin arrintaasi. waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen. waxay wareeg ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe. Gudoomiyaha golaha shacabka ee waqtigiisu dhamaaday Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kamid ahaa martida ka qayb galaysa shirka ka socda magaalada Garowe ayaa la weydiiyay marka la gaaro 8 February ee sanadka 2021 waxa dhacaya. Mursal ayaana ku jawaabay in aysan dhici doonin wax ka duwan wixii dhacay sanadkii 2016 xilligaasi oo dawladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay bilo dheeraad ah ku darsatay muddo xileedkeeda. 8 February wixii dhacay sanadkii 2016 ayaa dhacaya. waad la socoteen baarlamaanka xilligaasi waqtigiisu waxa uu ku ekaa bishii 8aad waxayna shaqeynayeen ilaa bishii 12aad. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna 6 bilood ayaa uu sii joogay xukunka, waxa uuna ku joogay sharci lambar 20 oo isagu uu saxiixay. marka sanadka 2016 sidii uu ahaa Xasan ayuu ahaanayaa sanadka 2021 madaxweyne Farmaajo ayaa uu yiri gudoomiye Mursal oo ka jawaabayay su'aasha la weydiiyay. sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka jawaabayay isla su'aashaasi ayaa sheegay inuusan ku raacsanayn jawaabta uu bixiyay gudoomiye Maxamed Mursal, isla markaana ay wax badan kala fursad duwan yihiin labaday xilli doorasho. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dooday in bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 ay socotay doorashada kuraasta baarlamaanka dalka, halka maanta ee sanadka 2020 uu dhamaaday aysan weli doorashada bilaabashada ka horna aan la isku fahamsanayn qaabka ay doorashada u dhici lahayd. guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka ayaa dhawaan shaaciyay in 5 bisha January la soo gabagabeynayo diiwaangelinta senatarada u tartamaya aqalka sare, isla markaana la soo gabagabeynayo 14 bisha January iyada oo wixii intaasi ka dambeeyana la gudagalayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka. waa haddii uu hirgalo jadwalka guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka, walow dhowr mar uu horey u soo fashilmay jadwal ay dejiyeen. guddiga doorashooyinka ayaana jadwal soo dejiyay iyadoo aan laga heshiinin doorashada Soomaaliya ee sanadka 2021. waa tahay daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii sirdoonka ee siyaasadda oo ka daawanayseen Xildoon Media. fadlan la soco barnaamijyadeena dambe.